والله ده dadkeenu duruufo aad iyo aad u adag ay soo mareen qaabab dagaal sokeeye maamulo kala duwan oo dhib badan wax badan ay soo mareen kalsooni darro badanaa ka muuqatay kalsoonida dadka ku kalsoonaan lahaayeen ama qancinta dadka lagu qanci lahaa sidii ay wax ay wada leeyihiin ay u samaysan lahaayeen yay ahayd mid ugu dhibka badan oo waqtiga dheerna naga qaadatay sidii loo heli lahaa kalsooni wax ay wada leeyihiin dadku inay samaystaan taasna annaguna waqtiga aan gelinay oo dheeraadayba waxa keenay intaasay ahayday in maalin walba qof la soo qanciyo maalin walba koox la soo qanciyo maalin walba loo safro anigu aan u safro oo ra'iisul wasaaruhu u safro oo gudoomiyaha baarlamaanka u safro oo muxuu ahaay golaha wasiirada qaybooda kala duwan u safraan oo meel walba tagaan oo cid walba gurigeeda loogu tago oo aniga madaxweynaha jamhuuriyadda ah waxaan gurigooda ugu tagay dad badan salaadiinaan guryahooda ugu tagay si loogu qanciyo inay maamul ka mid noqdaan